gabagabowday doorashadii ilaahay waa mahadsan kaliya waxaan dardaaran jeedinaa oo ah ku saabsan xagga doorashada ama xagga ururka islaam waxaan moodaa macnaha inaan waxa loo sameynaa doorashada ma aha waa loo dhiibi karaa qof waa lihi karaa shaqada noo qabo waa la sameyn karaa laakiin waxaan u sameynaa waxa waaye inaan ogaano ama inaan wax ku barno ama inaan nidaamka ku fahansan adduunka waxaa maqlaysan doorasho la qabanaa dadaal doortay madaxweyne la doortay dadkeena oo gadaalka imaaday ma naqaansi wax loo doorto ma naqaansi macnaha waxaa aragna kaliya nin oo meesha taagan qof lagu keenaya naqaana laakiin taas inaan ka baxno inaan nidaamkan ku barno hadda waxaa waaye message marka la soo diray oo macnaha guddoomiyihii midowga ardada loo baahan yahay inaa qofkaas message xaqba kusoo jawaabayn dadka kusoo jawaabayan yihiin qof sharaxana shaqadaas u ilan noqon qof kasta wuxuu rabaa in meesha loogu yimaado taas aysan dhicin hadda kadib waxaan leenahay haddii shaqadan ay dhammaato way soconaysaa in qof kasta soo diiwaangeliyo qofka diyaar waa xilkiisa loo qabto daacad ka tahay inuu islaamku shaqeeyo daacad ka tahay inuu wax ku barto daacad ay ka tahay inuu waxqabad ula yimaado karti iyo hufnaan waxa aad astahay meesha aad ku muujin karta islaamka waay beri waxaa laga yaabaa meel inaad tagtid meesha aad tegaysid macnaha waxa waaye inaa meel aad qofka u qoolin meel aan qof kala kaashan karin meel lagu macnaha lagu ciilaayo ama lagu sameynaayo meesha meel obina waaye qof kastoo waxaa loo baahan inaad ku barto in waxaa la rabaa gabdho la helo shaqada qaban kara ninkis waxaan sugayna insha allah gabdhaha qaarkoodna soo sharaxaa waa shaqo qof kasta u furan qof kasta qaban karta ma aha wiil keliya la qabto macnaha in wiilasha macnaha ay taliya qabtaan waxaa la rabaa in gabdhaha ay qabtaan inay shaqooyinka qabtaan waxaa loo baahan yahay inaan naqano dad u soo taagan inaan u bislaano waxa nidaamka weeye marka inta allah waxaa rajeynaa iyo saddeqna kadib insha allah inay saan soo